bismillahi raxmaani raxiim maanta maalintii afaraad ayuu galay shirka golaha wadatashiga qaranka oo uu guddoominayo ra-iisul wasaare injineer maxamed xuseen rooble madaxdu waxay maanta sii wadeen doodaha ku aadan arrimaha muhiimka ah ee ay tahay in xal laga gaaro si loo dardargeliyo loona dhammaystiro doorashada oo ay ku jiraan dardargelinta doorashada arrimaha la xiriira amniga dalka daahfurnaanta doorashada iyo waqtiyeynta waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan la wadaagno in madaxdu doodo aad iyo aad u qoto dheer oo aad iyo aad mustaqbalka Soomaaliyeed muhiim ugu ah ay yeesheen in meelo badan horumar laga sameeyay in shirku uu ku socday jawi aad iyo aad u wanaagsan isla markaana dooduhu haddii Ilaahay uu yiraahdo ay sii socon doonaan ilaa madaxdu ay isla meel dhigaan dhammaan qodobada hor yaalla ee muhiimka u ah masiirka dalka iyo dardargelinta muxuu ahaa doorashooyinka jawiga uu shirku ku socdaahuna waa jawi aad iyo aad u wanaagsan insha Allah tacaala rajada madaxduna waxay tahay ay rabaan dadka Soomaaliyeed inay u sheegaan in shirka la rajeynayo inuu si guul ah ku dhamaado oo horseeda in dalka ay ka dhacdo si nabadana ay ku dhamaato doorashadu waqti ku habboon